kulanto waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorkaroon aad ku daawan doontaan galka wararka waxaa kamid ah farmaajo markii shanaad codsaday inuu maalinta axadda la kulmo beesha habargidar iyo beesha oo biri go'aan gaarayso mas'uul ka tirsanaa xukuumadda Soomaaliya oo xilka lagu qaaday inuu ku biiro xisbi xiisad ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiran iyo madaxweyne Waar oo xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka Hiran Al-Shaab oo la wareegay Deegan u dhow magaalada Bosaaso ee xarunta gobolka Bari lagana cabsi qabo inay gudaha u galaan Al-Shaab magaalada Bosaaso dagaal khasaare geystay oo ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan galka wararka daawadayaal haddii aad ku cusub tahay daawada waxaad saartaa YouTube-ka subscribe si aad u heshid warar xaqiiqo ah iyo xogtii ugu dambeysay ee Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu in ka badan 4 mar codsaday inuu kulan la qaato odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha habargidar laakiin waxa laga diiday kulankii ugu dambeeyay oo dhici lahaa horaantii bishan Maarso ee sanadkan isbuuciyadii ugu dambeeyay waxa uu farmaajo ku mashquulsanaa sidii uu ballan ugu heli lahaa beesha habargidar laakiin lama yaqaan sababta uu doonayo inuu la kulmo beesha habargidar laakiin waxa muuqata inuu culeys badan ka soo wajahday dhanka dhaqanka beesha mid ka mid ah odayaasha beesha oo la hadlay mool ayaa wuxuu madaxweyne farmaajo ku eedeeyay inuu balanta ugu baxay odayaasha dhaqanka beesha habargidar waxa uu sheegay in kulankaasi ay diideen isla markaana ay si weyn uga hor yimaadeen kulamada uu doonayo inuu madaxweyne farmaajo la yeesho beesha habargidar odayaasha beesha habargidar ayaa maalinta biri ah ku leh magaalada Muqdisho kulan ay go'aan ugu gaarayaan in habeenka axadda lala kulmo madaxweyne farmaajo ayaa ku soo dhamaaday in beelaha Soomaaliyeed ay diidaan in ay la kulmaan isagoo oo ku fadhiyo kursiga madaxtinimada Soomaaliya waxa la arki doonaa go'aanka ka soo baxa shirka beesha habargidar ee Brita ka dhacay magaalada Muqdisho xukuumadda Soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameysay mas'uul sare oo ka tirsanaa xukuumadda Soomaaliya kadib markii uu ku biiray xisbi siyaasadeed wasiirka boostada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdi Xasan Canshuur ayaa xilkii ka qaaday Cali Ibraahim Cali Shaam oo kamid ahaa guddiga madaxa banaan ee isgaarsiinta qaranka idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa baahisay wararka ku saabsan in xilka qaadis lagu sameeyay mas'uulkan iyadoo sheegtay inay hayso warqad xilka lagu qaaday uu ku saxiixan yahay wasiir Canshuur Cali Ibraahim Cali Shaam ayaa la sheegay inuu ku biiray xisbiga Horusocod waxaana lagu arkay liiska xisbigaas mas'uulka xilka laga qaaday ilaa iyo hadda ma uusan ka hadlin xilka qaadista lagu sameeyay sidoo kalena wasaaradda wali si rasmi ah uma soo bandhigin warqadda xilka lagu qaaday guddiga madaxa banaan ee isgaarsiinta qaranka ayaa waxa dhistay wasaaradda boostada isgaarsiinta waxaana ka hor imaaday qaar ka tirsan shirkadaha isgaarsiinta iyo maamul goboleedyada dalka wararkan ka helayno magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiran ayaa sheegay in maanta xiisad adag ay ka taagan tahay xarunta maamulka gobolka oo ku taala bartamaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiran wararka ayaa sheegaya in gudoomiye Yuusuf Dabageed oo xilka laga qaaday uu gabi ahaanba diiday xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo inuu xilka wareejiyo Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in shacabka Hiran ay ka tashteen madaxweyne Waare isla markaana uusan aqbalayn in xilka laga qaado arinta ugu weyn ee gudoomiye Dabageed iyo madaxweyne Waare isku qabteen ayaa ah maareynta dhaqaalaha badan ee ka soo xarooda gobolka Hiran wuxuuna madaxweynaha doonayaa in lacagta ka soo xarooto magaalada Beledweyne si toos ah loogu soo shubo bangiga maamulka Hirshabeelle oo isaga uu maamulo mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo wasiirro ayaa wada dadaalo lagu hortagayo in khilaaf Yuusuf Dabageed iyo madaxweyne Waare uu si xoogeysto Yuusuf Dabageed ayaa shalay ku dhawaaqay in dadka ku nool deegaanada gobolka Hiran ay ka tashaan madaxweyne Waare xiisadaasi ayaa maanta ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiran waxaana la ogeyn sida uu xaalka noqon doono wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegay in xubno ka tirsan Al-Shaab ay la wareegeen deegaan muhiim ah oo ku dhow magaalada Bosaaso ee xarunta gobolka Bari ururka Al-Shaab ayaa baahiyay in xubno iyaga ka tirsan ay la wareegeen deegaan istiraatiiji ah oo hoostaga magaalada Bosaaso kaasi oo lagu magacaabo deegaanka af urur Al-Shaab ayaa baraha internetka ku baahiyay in ciidamada Puntland ay iskaga carareen kadibna ay si toos ah ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Furur ee gobolka Bari waxay sidoo kale Al-Shaab ay baahiyeen in ciidamada Puntland ay ka carareen awoodda Al-Shaab isla markaana uusan jirin wax dagaal oo ka dhacay deegaanka Furur wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada Puntland ee iskaga baxay deegaanka Furur ay gaareen degmada Carmo dadka deegaanka ayaa sheegay in Al-Shaab ay baaritaano ku sameeyeen xarumihii ay faarujeen
saraakiisha Puntland. deegaankan iyo deegaano kale dhowr ah waxa hore ugu dagaalamay Al-Shaab iyo ciidamada Puntland waxaana Al-Shaab dagaaladaasi loogu qabtay maxaabiis badan oo wili qaarkood ku xiran xabsiyada Puntland. sidoo kale Al-Shaab ayaa dagaaladaasi guulo ka sheegay iyagoona sheegay in ku dhawaad 100 askari ay kaga dileen ciidamada Puntland. ma jiraan wax war oo wili ka soo baxay maamulka Puntland ee gobolka Bari ee ku aadan sheegashada Al-Shaab ay sheeganayaan in ay la wareegeen deegaanka Afurur. sida dadka deegaanka ay ku soo waramayaan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose wararka ka imaanay waxay sheegayaan in saaka halkaasi uu ka soo cusboonaaday dagaal beeleed u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed ee wada degan gobolka. dagaalka ayaa hore waxa lagu guuleystay in la joojiyo kadib markii halkaasi ay gaareen ciidamo iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya. dagaalka saaka ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la xaqiijiyay in ugu yaraan ay ku dhinteen 5 ruux waxaana halkaasi ku baxay ciidamada dawladda Soomaaliya. sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka dagaalka ayaa ka dhashay markii dhinac ka mid ah uu dilay 2 nin oo lagu eedeeyay inay dhac ka geysanayeen inta u dhaxaysa Walaweyn iyo ceelka Hiran ee gobolkaasi ka tirsan. xiisad ayaa la sheegayaa in ilaa iyo hadda ay ka taagan tahay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay u dhaxayso laba maleeshiyo beeleed ee wada degta gudaha degmadaasi. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen galka wararka intaan warkaan kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.